وأصبحني ما حدا taariikhduna ay ku beegan tahay 10 bisha Oktoobar sanada 2022 ku soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media sida caadada shabakada Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah oo inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyada badan baraha bulshada ee Siraar Cade haddaba ka bogta xogta oo dhameystiran maxaa sababay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen uu colaadiyay isla markaana ka ilaaliyay helitaanka xuquuqda beelweynta Hawiye ay ku leedahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Lafta Gareen waxa uu si cad u diiday in beesha Hawiye ay qayb ka noqoto talada maamulka Koonfur Galbeed nacaybku uu qabo Lafta Gareen beelweynta Hawiye waxa uu cadeystay markii uu dhisay golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada Koonfur Galbeed wuxuuna Lafta Gareen si bareera daaha uga qaaday nacaybku uu qabo beesha Hawiye markii uu yiri waxaan dhisayaa golaha deegaanka ee degmada Baraawe isagoo go'aamiyay inuu san Hawiyaha wax xuquuq ah ku lahayn degmada Baraawe kadib qoraa Siraar Cade ayaa waxa uu qoraalkiisa ku yiri qormadeedu waxay ku saabsan tahay oo aan si faahfaahsan uga hadli doonaa habdhaqanka foosha xun ee uu caadaystay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen markii loo doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Lafta Gareen waxa uu xoogiisa isugu geeyay sidii uu takoori lahaa isla markaana uu saaxada siyaasadda Koonfur Galbeed ugu saari lahaa beelweynta Hawiye Lafta Gareen wuxuu kaloo si daahfuran oo aan gambasho lahayn ugu shaqeeyay in beelweynta Hawiye ee qaybta ka ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed laga barakiciyo deegaanada ay ka degan tahay maamulka Koonfur Galbeed si taasi u dhaqan gashay waxa uu Lafta Gareen diyaariyay maleeshiyaad ka kooban qabaa'ilada deegaanka Koonfur Galbeed maleeshiyaadkaasina waxa uu Lafta Gareen u sameeyay ballanqaadyo lacageed xilal iyo darajooyin intaba maxaa sababay in loo diido xuquuqda ay ku leedahay maamulka Koonfur Galbeed beesha Hawiye waa sidee awoodda deegaan ahaan iyo hanti ahaan ay ku leeyihiin beesha Hawiye maamulka Koonfur Galbeed beelweynta Hawiye waa qabiilka ugu hantida badan marka loo fiiriyo qabaa'ilada kale ee degan maamul goboleedka Koonfur Galbeed beeshani waxa ay leedahay maalgelinta ugu ballaaran ee lagu sameeyo deegaanada Koonfur Galbeed waxaana soo koobaya maalgashiga beesha Hawiye ay ku sameysteen maamulka Koonfur Galbeed gobolka Shabeellaha Hoose wax walba oo aseenda iyo beeraha 90% waxa iska leh beesha Hawiye xoolaha nool ee lagu dhaqdo gobolka Shabeellaha Hoose waxa iska leh 93% beesha Hawiye gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka kooban yahay 8 degmo hantida iyo nolosha deegaanadaasi ka jirta intaba waxa iska leh maalgashina ku sameystay gacantana ku haya isla markaana suuqgeentooda iyo ganacsigoodaba maamula beelweynta Hawiye tusaale ahaan suuqgeenta xoolaha dalagga ka soo go'a beeraha suuqgeenta caanaha hilibka ka ganacsiga kalluunka maalgelinta beeraha dhululka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka badda waxa dhamaantoodaba maalgashada waa beesha Hawiye canshuurta maalinlaha billaha iyo tan sanadlaha ay soo gashay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa laga qaadaa oo bixiya hantiilayaasha beesha Hawiye xog ururin aan sameeyna canshuur bixinta deegaanada Koonfur Galbeed waxaan u cadaatay inaynan canshuur u bixinin sidii u bixiyaan beesha Hawiye marka la fiiriyo qabaa'ilada kale ee deegaanka Shabeellaha Hoose Baay iyo Bakool tusaale magaalada Baydhabo canshuurta laga qaado waa mid kooban waxaanba dhihi karnaa canshuurba ma bixiyaan reer Baydhabo iyo Bakool marka loo fiiriyo sidii canshuurta u bixiyaan bulshada Hawiye ee degta gobolka Shabeellaha Hoose sababta qabiilna canshuurta looga qaado kuwa aan canshuurta bixin mushaar looga dhigo waa siyaasadda u degsan madaxweyne Lafta Gareen ee ah in qabiilkiisana nooleeyo korna u soo qaada dhaqaale ahaan iyo maalgashi ahaanba beesha Hawiyena lagu odoomiyo isla markaana la barakiciyo si barakicintaasi loo suurtageliyana waxa uu madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen dejiyay qorshe muddo fog ah oo ah sidii loo ugaarsan lahaa dadka udub dhexaadka u ah beelweynta Hawiye ee hantida ku leh maamul goboleedka Koonfur Galbeed taasina waxay u socotaa sidii uu qorsheeyay madaxweyne Lafta Gareen si isdaba joog ah ayaana loo ugaarsadaa loona dilaa haldoorka beesha Hawiye mar haddii beelweynta Hawiye ay yihiin qabiilka ugu maalgashiga badan Koonfur Galbeed isla markaana ugu canshuur bixinta wanaagsan kana mid ah qabaa'ilada ugu tirada badan ee deegaanka maamulka Koonfur Galbeed waa sidee tixgelinta ay ku leeyihiin Koonfur Galbeed sideese loola dhaqmaa bulshada beesha Hawiye xog ururin aan ku sameynay habdhaqanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee ku aadan beesha Hawiye marka laga fiiriyo dhinac walba waxaan soo xaqiijinay isla markaana aan cadeynaynaa inaysan helin beelweynta Hawiye tixgelinta ay mudan yihiin marka loo qiimeeyo tiro ahaan tayo ahaan awood ahaan maalgashi ahaan qaab iyo qadarin intaba waxaa ka mid ah gaboodfaladii ay kula kaceen madaxda maamulka Koonfur Galbeed ee uu hormuudku u yahay qabyaaladista Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen bulshada ka soo jeeda beesha Hawiye waxa beelweynta Hawiye loo diiday xilalkii ay qayb ahaan u lahaayeen sida madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Koonfur Galbeed sababta uu madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen xilkaasi u hortaagan yahay waa isagoo hoos u dhigaya mudnaanta iyo maamuuska ay Koonfur Galbeed ku leedahay beesha Hawiye Lafta Gareen iyo shacabka Koonfur Galbeed oo aaminsan inaanay waxba lahayn beesha Hawiye madaxda Koonfur Galbeed oo nacayb badan ku abuuray qabaa'ilada kale ee aan Hawiyaha ahayn si loo takooro isla markaana aan matalaad iyo maamuusba Hawiyuhu ku yeelanin talada maamul goboleedka Koonfur Galbeed damacaasi foosha xun ee madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen uu soo maleegayna waa uu guuleystay marka aad dib u milicsata sida ay maanta u dhisan tahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen wuxuu beesha Hawiye ee ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed diiday inuu siiyo xaqii ay ku lahayd Koonfur Galbeed
haddii ay noqon lahayd xildhibaano, wasiiro, agaasimayaal, taliyaal ciidan, gudoomiye degmo iyo xilalka faraha badan ee laga dhunqabtay beesha hawiye isla markaana uu u diiday madaxweyne lafta gareen ujeedkiisuna waa in beesha hawiye aysan talo ku yeelanin maamul goboleedka koonfur galbeed si uu niyadda ugu jabiyo shacabka hawiye madaxweyne lafta gareen wuxuu amar ku bixiyay in la dhaca dhammaan hantidii maguurtada ahayd oo ay bulshada hawiye ku lahayd maamul goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan baay iyo bokool hantidaasi maguurtada ah oo ka kooban dhismayaal iyo dhulbeereed ayaa waxaa xoog ku haysta dad ay isku hebiyeen madaxweyne lafta gareen markii beelweynta hawiye ay kala xiriireen dhibaatada lagu hayo beesha hawiye qabyaaladista cabdicasiis lafta gareen dhagaha ayuu ka furaystay dhammaan baaqyadii ugu yimid waxgaradka beesha hawiye taasina waxa ay caddeyn buuxda u tahay in uu toos ula dagaalamayo beesha hawiye iyo mustaqbalkeeda dhow iyo kan fogba madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ugu dambeyntii qoraaseeraar cadda ayaa qoraalkiisa ku yidhi tala soo jeedin ku saabsan maxaa xal u ah beesha hawiye sidee loogu bixi karaa dulmiga joorfalka iyo ilhaanada ay ku hayaan madaxda koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweyne cabdicasiis lafta gareen beesha hawiye waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dadkeeda deegaanadeeda iyo maslaxadda bulshada ku abtirsataa mar haddii ay xaqiiq tahay inaysan diyaar u ahayn madaxda koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweyne cabdicasiis lafta gareen inay siiyaan tixgelinta ay mudan yihiin beesha hawiye ee wax ka dhisatay maamulka koonfur galbeed markii aan xog ururin badan ku samaynay habdhaqanka foosha xun ee loola dhaqmay beesha hawiye waxaan soo jeedinaynaa in ay beesha u midowdo siday uga hortagi lahayd madaxweyne lafta gareen oo ay madax martay qabyaalad qaraabakiilnimo iyo ninjeclaysi noloshana ka raadinaya naceebku u qabo beesha hawiye waa dhagarqawi madaxweyne cabdicasiis lafta gareen marka aan qiimeyn ku samaynay hantida maalgashiga ah iyo deegaamaysiga aadka u xoogan oo ay ku samaysteen beesha hawiye deegaanada maamulka koonfur galbeed si loo xaqiijiyo badqabka sharafka ummadnimo ee beesha hawiye waxaan soo jeedinaynaa in kalsoonida lagala laabto ka mid ahaanshiyaha maamulka koonfur galbeed islamarkaana naf iyo maalba laysugu geeyo sidii loo difaaci lahaa nafta maalka iyo cirdiga bulshadu ku abtirsata beelweynta hawiye in laga sii mid ahaada maamulka koonfur galbeed waxa ay ku soo dhammaan doontaa in qof walba u dhashay beesha hawiye loogu yimaado gurigiisa beertiisa iyo raasumaalkiisa uu muddada soo dhisaya amaba tabcaye laguna yidhaahdo ka dhex bax kadibna kuwii ka dhex saaray oo reer koonfur galbeeda ay la wareegaan hantida nooc walbo ay tahayba si taasi looga badbaado waa in beesha hawiye guntiga dhiisha isaga dhigaa sidii u difaacan lahaa jiritaankiisa nafeed hantiyeed iyo jiritaanka sharafta iyo qiimaha uu ku dhex leeyahay qabaa'ilada Soomaaliyeed dhexdeeda Soomaalida wada dhisata maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa deeqda cadaalad sinaan iyo in lagu wada deganaado daris wanaaga iyo wada noolaashiyaha dhexdooda balse xalku kuma jira in madaxweyne cabdicasiis lafta gareen inuu u kala qaybiyo qabiilada heebtooda qabiil qaarna uu ka exdo xuquuqdoodana duudsiyo qabiilada ku heebta ahna uu u sadburiyo colaad abaabulana uu ku barakiciyo beesha hawiye taasi haddii ay soo socoto waxaa jawaab u dhiganta dhaqan xumada lafta gareen ka bixin doona beesha hawiye ee muddada dheer la dulminayay insha allah ayuu qoraalkiisa ku soo koobay qoraaseeraar cadde adigoon wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta meediya fadhigo weelka ruma sirta meediya